Cusmaan oo kamid ah dhalinyarta ku dhaqan gobolka Awdal ayaa ka jawaabaya baaq shalay ka soo yeeray salaadiinta. Kulli waxa marxaati madoonta ah in uu saamigi iyo xaqi gobolka lahaa uu maqan yahay oo uu ku maqan yahay beesha dhexe. afka dhalinyarta aniga ku hadlaya waxaan marka hore halkan ka cadeynayaa in aan ilaa saamiga dib loogu noqdo aan arimaha saamigi iyo waxa weeyaan xaq iyo cadaaladda gobolka ka maqan ilaa la siiyo mooyaan inaan wax doorashada dalka ka dhacayn. kulli waxaan maqlayaa in dad leh waxa weeyaan soo qarash gareeyay dana gaarana leh toodii masiirkii dadka shacabka iyo gobolkooda Awdal danahooda ka hormariyay ayaa leh shalay iyo darhad aan maqlayay doorashada la qabanaya iyo way dhacaysaa. kulli waxa fool xumaan aad uga xumaay in inta odayaal salaadiin isku sheegaya oo is soo taaga media oo leh doorashada waa la qabanayaa kadib ayaa saamiga la hadlaya. waxa kaliya ee saamiga laga hadlaya arimaha xaq maqan loo doodayaa waa intaan doorashada la qaban ka hor. mar haddii doorashada la qabto saamiga laga hadlayay muxuu yahay? saamiga laga hadlay mar haddii doorashada la qabtay muxuu yahay? odayaal shalay media is soo taagay oo leh magaca Jibriil Yunus baanu nahay leh aad baan uga xumahay runtii inaan magaca iyo dadka iyo tolka meel kaga dhacaan. Suldaan Baade waa suldaankeygii waana adeerkay. waxaan leeyahay masiirka iyo shacabka guud ahaan gobolka Awdal iyo Silil xaq iyo masiirka ay doonayaan adeer waxaan leeyahay dantaada iyo danaha ku gaarka ah ka soo hormarin oo dadka shacabka wax eeg. kulli odayaasha ee shalay hadlay sidoo kale Nuur waxa uu dhaliilo dusha uga tuuray wasiir Saajin waxa uu yiri ganacsiga wasiir Saajin adeer waxaan ku leeyahay kada shacabka iyo gobolka khiyaanad oo ku wada kada khiyaanad wada shacabka khiyaamaysa wax allaala waxaad u qabatay oo maanta miiska saaran ma jiraan ilaa isku dir iyo caadifad iyo wax ka muuqda mooyaan. adeer kuma caayayno kuma aflagaadeynayno waxa weeyaan wasiir Soomaaliland ma tahay in aan xaqa iyo shacabka reer gobolka Awdal aad matisho aad xaqooda xuquuqooda raadisay ma aha inaad wax soo socda aad ka fikirto ma aha wax dhici doono iyo waxaan war looga hayn inaad ka fikirto ma aha. madaxweyne ku xigeen baan doonayaa inaad shacabku kala qaybisa inaad dantaada iyo danahaaga eegato waa laga qurux badan yahay waa laga fiican yahay. odayaashaad kala qaybinaysay kada odayaashii salaadiinta intii guushi soo hoyseen aad baa lagu mahadcelinayna laakiin salaadiinta kala qaybsamay iyadoo madaxtooyada jooga kala qaybsamay labada suudaan ee ka baxay salaadiinta kale ninka kala qaybiyay adigu ahaa ninka kala qaybiyay adigu ahaa. adeer waxaan ku leeyahay dhibaatada iyo shacabka xaq darada iyo kada badan ku leeyahay salla calay kada. waxa kale halkan aad ugu mahadbalyeynaya oo si geesinimo leh shalay uga hadlay xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland oo shalay yiri anagu waanu dareereynaa ama saamigeyga noo raadinaya. aad baan u soo dhaweynayaa xildhibaanada shalay sida ragganimada u hadlay. waxaan leeyahay halka ka sii wada waxaad dareenteen ama aad ku taagan tihiin dhabihii iyo shacabkii iyo guud ahaan gobolka Awdal wadada saxna ee ku taagan tihiin salaadiinteeda gobolka ee shacab ee mar walba u taagan in xaq iyo saamiga la raadiyana aad baan u soo dhaweynaynaa. anagu waa guud ahaan gobolada Silil iyo Awdal waa la wada midaysan yahay oo saamiga si isku mid ah loo wada doonaya. waxa kala qaybsanayna ma jirto dhalinyartu ma kala qaybsanaadeer dhalinyartu ma kala qaybsana. waxaan leeyahay waan xaqan baaq u soo jeedinayaa saamiga dib loogu noqdo ilaa xaqiga saamiga dib loogu noqdo adeer waxa doorasho dhici karaysa ma jirto shacabku uu ka casan yahay. waxaan kale halkan baaq u dirayaa wasiirka in uu shacabkiisa iyo dadkiisa kala qaybinayay hal wasiir oo dadkiisa iyo shacabkiisa matalayo burca ku sugan oo si kulul gobolka uga hadlay oo yiri cadeeyay inaan saamiba aanay jirin gobolka Awdal iyo shacabkiisu miyuu waalan yahay. dawladdu isoo dhistay bay gacantiisa ku baabiinayay oo soo burca shacabkiisa ku dhex taagay oo yiri hadaa adeer u jawaabi weyday wasiir Saajin dad u jawaabi weyday wasiirkaasi waxa anaga noo taraysa ma noo qabanaysaa ma jirto. beelaha kale ee gobolka ku sugan
waxaan baaq u soo jeedinayaa haddii yiraahdaan beelaha makaahilba ayaa wax weeyaan naga falaago oo naga baxay oo xukuumadda naga raacay hadda leedihiin adeer ma jirto gobolka wala wada midaysan yahay waxaad xukuumad iyo doorasho raacdayna ma jirto anagu waxaan ka hadlaynaa beesha makaahil afka dhalinyarta beesha makaahil baan ka hadlayaa beelaha kale leh wuu ka baxay oo makaahil baan ugu xumaaday xukuumadda naga raacay ma raacin taa ma raacin dhalinyarta oo dhan ma raacin laakiin laba oday min laba saddex oday weeyaan kuwaana laaluush iyo lacag iyo wax la tusay ay hore u barteen oo imkaan aan heleynde madaxweynihii dasiiraan yaday ka dhirki jireen oo keli jireen kan kama heliyaan ayay u raadinayeen taasay rabaan inay kala qaybiyaan saajiro madaxweyne ku xigeen aad ku ooyisay ma jirta shacabka sida kada khiyaamada kada oo dadkaaga meel ka raac aad iyo aad ban uga xumahay wadayaasha shalay hagan ka soo jeediyay baaq oo hadda doorashadan raacnay iyo kuwii ka soo horeeyay iyo siyaasi hargeysa ka hadlay oo lahaa wax saami leeyahay ma jirto rag gobolka Awdal way kibirsan yihiin haddana le gobolka Awdal bal matilayay adeer wixii ana naga soo horjeesada ama wixii la doorasho way dhacaysaa gobolka ma matalo dhalinyartana ma matasho waxaan halkan baaq u jeedinayaa cid leh gobolka Awdal saami kama maqna doorasho way dhacaysaa cid leh wal adeerayaal adeero gacale waxayaan isku soo habsaamin matalada gobolka matalaysaana ma jirto waxaan la helo ilaa aqay cadaalad la helo hadii kale waa jaarka inoo furay federaalka muqdisho ayaan ku beerinaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta masiirka iyo danta iyo shacabka guud ahaan gobolka Awdal ka hadlaysay aad baan adeer u soo dhaweynaynaa halkaana ka sii wada xaq iyo saamiga gobolka ka maqana sida adeer u raadiya waa maxamed qalle cismaan sayl camiiriya magaalada Boorama.